dilalkan isdaba joogga ah Soomaalida ay shalay ka dhacay Nairobi ama maxaan ku raahdaa qaybta Soomaalida inan iyo maxaan ku raahdaa ama laba hablood iyo hooyadood dil fool xun loogu geystay runtii halkan ayaan tacsi uga dareena waanu ka xunnahay musiibada foosha xun ee ku dhacday dadka ehelka ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba cadaaladdu waa shay muhiim ah in cadaalad la helo sa ogtihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhidibada adduunka ayuu wuxuu ku aasay cadaaladda haddaan cadaalad la helinna waa ogtihiin adduunka fawdada iyo isdardarka iyo falxumada ka socota marka qaybta sharcigan qaramada midoobay maxaan ku raahdaa taariibta iyo burcadbadeeda iyo maxaan ku raahdaa dilalka kufsigu uu qayb ka yahay taasaan runtii anagu aanu qayb ka ahayn waana alxamdulillah maanta waa la ansixiyay waxaananu codsanaynaa mar walba waxyaalaha shuruucda la ansixiyo ee halkan golaha lagu ansixiyo inay fulin helaan oo dawladda iyo garsoorka ay maaragtay mar walba ay fulin helaan oo la garab istaago cadaaladda oo dadka xumaanta caadaystay dilalka iyo kufsiga iyo burcadnimada iyo tahriibta iyo isku wada duub dhammaan dilalka foosha xun dadka caadaystay inay cadaalad la kulmaan oo kuwa u soo miliqsanaya xumaanta iyo cadaalad darrada u soo miliqsanaya ay ku cashar ka qaataan oo arrintaas eedab u noqoto dadka xumaanta doonaya inay sameeyaan ama u soo miliqsanaya ee u soo hanqal taagaya inay dib u fadhiistaan iyo cadaaladdu u tahay ay sax u tahay marka taasana qayb ka ahayn waanu ku faraxsanahay runtii arrin kasta oo cadaaladda ku saabsan in maanta halkan lagu ansixiyay aadna waa u mahadsantihiin dhammaantiinba u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka dahabalaas